waxaan rabaa laba qodob oo muhiim ah inaan ka hadlo. qodobka koowaad wuxuu yahay xayiraadda mar kale dib loo saaray Soomaaliya iyo joogitaanka ay sii joogayaan AMISOM xiriirka ka dhaxeeya maxay tahay. waxaan rabaa inaan kuu sheego sidoo kale marxaladihii ay soo martay cunaqabatayntii la soo saaray dowladda federaalka ee Soomaaliya xagga ay hubka ah ayaan rabaa inaan kula wadaago. sidoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego oo barnaamijkan aan kugu soo gudbiyo inta sanad ama inta muddo ee xayiraadda Soomaaliya mar kale la saar xagga ay hubka ah ayaan rabaa inaan kula wadaago. laakiin waxaad ogsoonataa in maanta laga shaqeynayo in dowladani cagaha ay ku istaagto in la diidan yahay. laakiin marka halkaas uga tago qodobkaasi waxaan rabaa inaan kugu soo gudbiyo qeybaha dhexan yaraa inaan kugu soo gudbiyo qodobkaasi. laakiinse raggii musharaxiinta ahay oo markaani taagan quus ama kalsooni daro ku muujinayo weli ayadana la gaarin doorashada. laakiin waxay isweydiin mudan maanta miyay ka shaqeynayaan in dib u dhac doorashada lagu suubiyo mise waxay ka shaqeynayaan horumarka doorashada. waa su-aasha aa maanta isweydiinayso oo qalbiga ay ka guuxayo. laakiin waxaan rabaa inaan kula wadaago dhammaantood marka aan eego musharaxiinta waxay u soo hambalyeeyeen ama hambalyo ay ka suubinayeen 54 senatar ee la soo doortay. waxaad isweydiinaysaa ma doorashaa socoto mise doorashada ma socoto. waxaan wada ogsoonahay in raggaani musharaxiinta ah ay maanta taagan yihiin kalsooni darro kana muujinayaan intaana la gaarin doorashada. waa hadda doorashadu weli ma bilaaban. hadda ayay soo baraarugeen oo arkeen in Dani iyo Axmed Madoobe ay ka tashteen weliba ay ka shaqeynayaan maantay rag ayaga ka socda labadooda midkood in ay dhisanayaan kuna dhisanayaan sida filada Soomaaliya qof u tartama ay u geysan lahaayeen. hore waxay usoo kasoo mid ahaayeen badbaado qaran ayay hore uga mid ahaayeen weliba iyagu ka shaqeynayo qaab walbaba dalka lagu burburi karo raggaani loo muuji lahay inay yihiin rag dalkooda burburinayo. laakiinse nin walba wuxuu dalka ka hayay xil ayuu ka hayay markaasi badbaado qaran ragga ka mid ahay ay ka mid yihiin Axmed Madoobe iyo Dani. laakiin maanta waxay gooni ugu shirayaan xildhibaanada ayaga ay soo magacaabo lahaayeen ay maanta ka shaqeynayaan. laakiin musharaxiinta xaraash qaran ayaa maanta dib u soo baraarugay ogaaday in labada maamul goboleed aysan hal qof ku yeelan doonin. waa hadda hal qof ka mid ah ka socdo maamul goboleedkaasi inaysan ku yeelan doonin weliba rag ka mid ah musharaxiinta inaysan arki doonin hal cod ka socdo maamulkaasi. aad ayaan ugu faraxsanahay inay maanta soo baraarugaan arkaan in doorashadii gacmahoodii ka baxday weliba aysan waxba ka qaban karin. nin wax dalkeena ama wax u tari kara dalkeena ayaan jeclaan lahayn in dib loo doorto. waxaan jeclaan lahayn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa ninka kaliya maantay muujiyay dowladnimo ee qab Soomaaliyeed weliba aan lagu arag ragii ka horeeyay madaxdii hore. marka intaas uga gudbo ragga kalsooni xumada muujinaya maanta aanan kalsooni ku qabin in xataa ay u tartamaan xilka ugu sareeya dowladnimada Soomaaliya ayaa maantay quus taagan. waa hadda quustii ugu dambeysay ay taagan raggaasi. halkaas aan uga soo gudbo dhowrkii sano ee la soo dhaafay oo kaliya ay Soomaaliya bilowday in ay cagaheeda ku istaagto kadib 30 sano dagaal iyo qax ka socdo Soomaaliya. laakiin AMISOM rag ka mid ah ayaa waxay ka shaqeynayaan ama ay ka soo shaqeeyeen qaabkii dowladda Soomaaliya loogu kordhin lahay xayiraadda hubka saarneed si AMISOM dalka mar kale ay u sii joogaan. way ka soo shaqeeyeen laakiin qaramada midoobe ayaa markaan waxay soo go'aamiyeen hal sano oo dheeri ah in la saaro xayiraadda dowladda Soomaaliya. waxay sheegeen qodobo ka mid ah in qaramada midoobe in xayiraadaas la saaray ay tahay si aysan ragga kale argagixisada ay isugu gudbin hubka ayay ku sheegeen. waa haddii ay doonayaan nabadda Soomaaliya maxay ugu diidayaan dowladda Soomaaliya in ay maantay cagaheeda mar kale dib ugu istaagto weliba ay ka shaqeynayaan qaabkii ay dowladnimadeena daciifnimo ugu muuji lahaayeen. marka halkaas uga soo gudbo waxaan rabaa inaan kula wadaago marxaladihii ay soo martay cunaqabatayntii hubka ay saarnay Soomaaliya. bishii hore ee la soo dhaafay bishii Janaayo ee sanadii 1992
ayaa markii ugu horeysay qaraar ka soo baxay golaha ammaanka oo tirsigiisu ahaa 733 cunaqabataynta hubka lagu saaray Soomaaliya xilligaas oo ahayd sanad kadib burburkii dowladda dhexe. bishii June sanadii 2001 qaraar oo tirsigiisu ahaa 1356 oo ka soo baxay golaha ammaanka ayaa dib ogeys lagu sameeyay xayiraadii hubka ee Soomaaliya, waxaana la soo reebay hubka qaar iyo qalabka military oo caymin si loogu adeegsado howlaha la xiriira bani'aadnimada. ayna hore aynu uga gudubnay bishii Luulyo ee sanadii 2002 qaraar oo tirsigiisu ahaa 1425 oo ka soo baxay golaha ammaanka ayaa lagu kala cadeeyay hubka la mamnuucay ee Soomaaliya, waxaana lagu qeexay in cunaqabataynta ay kamid tahay mamnuucitaanka ka ganacsiga hubka. bishii December ee sanadii 2006 qaraar oo tirsigiisu ahaa 1725 oo ka soo baxay golaha ammaanka ayaa xayiraad hubka looga qaaday Soomaaliya. qaraarkaas ayaa u ogolaaday in urur goboleedka IGAD iyo Midowga Afrika in ay faragelin ku subiyaan xaaladda Soomaaliya, ayna ciidan ka socda ayna wadamada gobolka geeyaan si ay gacan uga siiyaan dowladda Soomaaliya ay taageerida ka haystaan qaramada midoobay, isla markaana ay ka soo horjeedaan kooxaha hubeysan. bishii February ee sanadii 2007 qaraar oo tirsigiisu ahaa 1744 oo ka soo baxay golaha ammaanka ayaa lagu xadiday cunaqabataynta oo gaar looga dhigay dhinacyada aan dowladda ahayn ee Soomaaliya ee ka dagaalama. waxaa qaraarkaasi lagu ogolaaday in Soomaaliya la geyn karo hub iyo saanad military oo looga gol leeyahay in lagu garab istaago dowladda Soomaaliya. ayna bishii November ee sanadii 2008 qaraar oo tirsigiisu ahaa 1844 ayaa waxaa loogu bedelay cunaqabataynta hubka saaray Soomaaliya, waxaana lagu bartilmaameysaday cid walba oo ku xadgudubta xakameynta hubka. bishii December ee sanadii 2009 qaramada midoobay ayaa cunaqabataynta dhinaca hubka ah ku soo rogtay dowladda Eritrea kadib markii ay lagu eedeeyay in ay ku xadgudubtay xayiraadda hubka ee saaray Soomaaliya. bishii Maarso ee sanadii 2013 qaraar tirsigiisu ahaa 2093 oo ka soo baxay golaha ammaanka ayaa waxaa looga bedelay cunaqabataynta hubka Soomaaliya iyo hababka loo isticmaalayo waxyaabaha la xiriira saanada military ee la siiyo dowladda Soomaaliya, waxaana lagu sii xoojiyay cunaqabataynta ka dhanka ah dhinacyada aan dowladda ahayn ee ka barbar dagaalamaya dowladda Soomaaliya. marka waxay soo martay sanadahan kala duwan ayay soo martay xayiraadda dowladda federaalka ee Soomaaliya la soo saaray. sanadkan waxay sanadkii ugu dambeysay ee xayiraadda dowladda federaalka ee Soomaaliya in laga qaado ahayd loona gudbo xaalad ah sidii militariga dowladda looga saacidi lahay in maantay ay ku istaagi lahayd cagaheeda dowladda, waliba dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidankeeda ay la wareegi lahaayeen ammaanka dalkooda. laakiin qaramada midoobay ayaa waxay ka soo shaqeeyeen rag kamid ah oo ku jiro ayna Midowga Afrika kamid ah ayaa waxay ka shaqeeyeen qaabkii loo gudbi lahay Soomaaliya loogu kordhi lahay xayiraadda hubka. sidaas marka waxaa loo saaray maantay xayiraad ka dhan ah muddo 1 sano ah in la saaro cunaqabataynta hubka Soomaaliya lagu kordhiyo, taasi oo ka dhigan in awoodda Soomaaliya hoos loo soo dhigaa laga shaqeynayo dowladaha qaar. waxaan jeclaan lahay in maanta aan ka gudubno in AMISOM dalkeena ay waardiye ka noqdaan. waxay cadeen u tahay in maanta AMISOM loo kordhinayo muddo sanad ah in dalka ay sii joogi doonto. marka waxaan jeclaan lahay dowladeena in arkaan ay ka dhidiso sida ay uga soo horjeedsadeen wadamada kale ah Shiinaha iyo Ruushka ayaa si cad uga soo horjeestay in arrinkan lagu suubiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, taasoo ka dhigan inaan arrinkan lagu wada waafaqsaneyn dibna looga laaban doono haddii uu alla dimo insha Allah. halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena. waxaan kaa codsanaynaa videogan inaad la gareyso la wadaagto saaxiibadaada.